jogi kuruski irkatiro jadalada kalgacalkali sida qalin jogi kuruski irkatiro جبيي دوبتي قلم لقون جنفعو لتبتي تقوت دباري وهي وجيل نوبا نفتقوت دباري وجيل نوبا جيتي معاكي وصوتي حنجحو موتي نحيسا هذا جيتي معاكي وصوتي حنجحو موتي نحيسا نفتكو ترباني يوجيل نوغا هوي نفتكو ترباني جيتي معاكي وصوتي حنجحو موتي نحيسا هذا جيتي معاكي وصوتي حنجحو موتي نحيسا رئيس وزراء كبريان عن عبد الوهاب أو رئيس السكرتير كبريان كوباد سلامة كان وزير كدناء سكري وشدة وهرب مالمو وعنسيت تاسو دوينينا أمباسطور نور حسن حسين أو سفير كسوماليا وفرديا وكترياني مقالة روما هذا ما تنتهي هذا يقول هذه يرى كي يقول حري هاي أو أنا جبسنا هاي هذه أنا مفرحسنا كنتي عاوة إن يعني كون كان قيمة يقاية عليه وعاد يعني أبو طريق الشام وفتي وقابلنا رئيس الوزراء الصومالية البروفيسور عبد الولي محمد علي وما تنتهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الوزراء حكومة الكوميديا مدير البروفيسور عبد الولي محمد علي قاس سفيرك نور عدد هو بدو يوروب استمر كان سفيرك النوفدية ودياليغا سلادينتا علماء هويوينكا ودياشا دليرada قال الصحافة يفنانين تبوحنو السلام يا صلاة الإسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa farxad weynaya runtii oon isleeyahay laba farxadood bay noqonayaan inaan arko wajiyo aad u qurux badan oo roolowey ah islamarkaana ka sida Scandinavianka oo naftigeedu aan ahay ninka yimid waddanka Sweden runtii aad baan ugu faraxsanahay meel wasaare in badan ayaa waxaan aragnay dad badan oo runtii leh reer UK iyo North America oo ka imaatay ayaa dadka ugu firfircoonaa ay ka qayb qaatay لين الصومالية بس على حار حتى كتاي الرئيس كنديفيان أي رنتي آدي وصبحين يجينا ويا هذا الطريق مفروضنا وحياتها الوزارية بتسويسين وبحنا نسينا إياه أنا نفسي بحاجة لغة والبهار وحاجة هي سويدن يوحصل رجالنا أنتوا الوزراء مانين وحاس لهذا الأصل مانين وحاليا بين إلى مغرب مع هتانجي فريق عيد السلام. هذا يشاهد هل وزارة الحموس الأولية الميكروفون كثير على طبقة قيمها راح تحكمها أطلعه رأس للرجال الأولية هيكون الإسلام.
waxaan ku bishaareynaya waa tashanay cadowgiina waa ka tashanay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka ganacsiga iyo warshadaha cabdiwahaab ugaas xuseen ugaas khaliif ambassadorkeena danjiraheena EU iyo Italy Nuur Xasan Xuseen ahna prime ministerkeedii hore xildhibaan Yaasiin Cabdiseed Yarisow Abdulrahman Awar Cusman Yarisow ambassador waddanka Norway markaan u nahay odayaasha dumarka dhalinyarada waxgaradka bahda saxaafadda dadweynaha reer Norway reer Oslo maanta aad farxaddan iyo xafladdan qiimaha badan ugu soo dhaweeyey waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaan mahad weyn u naqayaa guddigii qabanqaabada xafladdan qiimaha leh loo sameeyey mahad gaar ayagaa u sinaqayaa oo aada ugu mahadsan yihiin soo dhaweynta iyo soomaalinimada iyo wanaagga ay noo muujiyaan aniga iyo waqtigaygaba idinkana kasoo qaybgalka aad nagu soo sharafteen imaantiga inaan isdhegaysano iswareysano ismaqalno aada baan nagaa mahadnaqaya waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa dowladda Norway oo runtii ah dowlad Soomaaliyana aada u taageerta aada ula shaqaysa hawl badan oo yani qayb kasta ha noqoto geedi socodka nabadda ha noqoto nabadgelyada ha noqoto dhismaha haykalka dowladnimo ee Soomaaliya runtii gacan naga siisa ahna wadamada kaliya ee qura ee aan dan gaar iyagoon ka lahayn Soomaaliya runtii aada loo taageera soo dhaweyntoodii halkaan iga soo aada uga mahadnaqaya inay maanta idinkana hoy iyo waxbarasho iyo nolol aada waddankoodii ka samaysanaysaan oo joogtaan oo sharaf iyo karaamo ugu nooshihiin iyadana aada loo mahadnaqaya intii hadashay intii shirtay intii baraamurtay intii la soo dhaweysay iyo xafladii iyo giftigii qiimaha badnaa ay siiseenna runtii aad baan kaga mahadnaqayaa madhow walaalkay baa wuxuu ka hadlay wuxuu yidhi liido waa inaan ku dabaalanaa liido waa ku dabaalanay waa aragtay marmeenay aan daba qabsanay anaa waxaan oran jiray war cabdiwaliyow Soomaaliya sida ugu laabanaysaa wiil yar baan leeyahay oo hadda 8 sano jira marka 8 sano wiilka jira ilaa uu jaamacad ka dhigto Soomaaliya ma joogaysid jaamacad ka dhameeyay ilaa waa inaad la joogtid markuu dhameeyana hadda adiga iyo dhakhtarka ka agtay kari marka sida Soomaaliya ugu laabanaysaa bal waddankaaga iska iimaanso iska joog waxaan idiin sheegayaa wiilkuna Soomaaliya waxbarasho fiican buu ka helayaa dhakhtar fiicanna Soomaaliya hadda waa jooga runtii Soomaaliya waxay gashay waxaad kala guur waan ka guurnay colaad waan ka guurnay nabadgelyo daro waan ka guurnay dhibaato iyo colaad iyo isdil waan ka guurnay challenge kasta iyo mushkilad kasta oo waddan soo marka mar walba waxaa la socota fursad opportunity la socota opportunity-ga la socota waxay ahayd markaanu qaylinay dadkii noo soo jawaabay dadkii ugu horreeyey waxay ahaayeen waddanka leelada Turki kahor waxaa loo yimid madaxweynaha dowladda Jabuuti Ismaaciil Margeela loo yimid kabacdi waxaa loo yimid ra-iisul wasaarihii waddanka Turkiga Erdogan
وحي من الصورة والتعهدتي يناكتي يوم maantana waxay ka hayaan Soomaaliya hawl aad u wanaagsan oo aan isleeyahay Soomaaliya way bedelaysaa yani forever Soomaaliya aad u bedelmaysa Turkiga ay bedelay waxa loo baahan yahay midnimo Soomaaliya wadankeena taasoo horumar ku gaaraya idina taasoo ku gaaraysan Assalaamu calaykum warahmatullahi barnaamijka ayaan soo gaarnay shabakada calanka oo maanta dhan idin soo tabinaysa xafladda weyn ee lagu soo dhaweynayay Ra'iisul Wasaare Cabdiweli Gaas ayaa ku soo dhamaatay fagaaraha weyn ee lagu qabtay ayagoo ka soo qayb galay bulsho badan mar walba kala socda shabakada caalamiga iyo TV-geeda barnaamij walba ee ka dhaca magaalada Oslo waxay idila socodsiinayaan anigoo ah wariye Wiil Jallan sidaas iyo nabadgelyo